magacaygu waa Ramli Cismaan Cali waxaan ka shaqeeyaa warbaahinta Hiiraaweyn qaybtida magaalada Beledweyne seminar badan oo uga qayb galay magaalada Beledweyne laakiin seminarkan mid la mid ah oo looga hadlayo xuquuqda aadanaha ma ka qayb galin oo waa magaalada ma laga furan waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday halkaan ugu soo koobi karin hadii aan dul maro waxaan ka faa'iiday dastuurka Soomaaliya iyo xuquuqda aadanaha sidoo kale waxaan ka faa'iiday muwaadiniinta guud ee xuquuqda aasaasiga ah sidoo kale waxaan ka faa'iiday sharciga caalamiga iyo waxa reebay sharcigaasi magacaygu waa Ibraahim Maxamed Xasan waxaan kamid ahay wariyaasha telefishinka dowlad goboleedka Hirshabelle wakiil waraydka uga ah magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan saxaafadda waxaan ku guda jiraa muddo 6 sanadood ah waxaan ku soo biray dabayaaqadii 2016 run ahaantii wax badan ayaan ka faa'iiday oo ku aadan habtabinta wararka markaas la xiriira arrimaha bani aadanimada magacaygu waa Xawluul Aadan Xuseen waxaan ka howlgalaa ama aan ka shaqeeyaa idaacadda Beerula mihnada saxaafadda waxaan ku jiraa muddo 6 sano ah si fiican ayuu ii anfacayaa tababarkan maadaama aan ka shaqeeyo arrimaha bulshada sidoo kale insana xuquuqul insaanka dadka inta badan dhibaataysan magacayga waa Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi oo ka tirsan Goobjoog Media Group waxaan saxaafadda ku jiraa muddo 12 sano ku dhow mar ayaan ka qayb galay tababar human rights ku saabsan hasa ahaatee waxay ahayd 7 sano ilaa 6 sano ka hor wax reference oo aan ka hay ama aqoon oo aan ka hay ma jirto hase yeeshee hadda tababarkan waxaan ka helnay buugaag qofka hadii uu 10 sano xitaa cashiradan uu moog yahay uu dib u akhrisan karo bismillaah magacaygu waa Cabdiwaxid Maxamed Aadan waxaan ka howlgalaa radio Beledweyne codka dowlad goboleedka Hirshabelle oo ku hadla afka dowlad goboleedka Hirshabelle khibradeyda saxaafadda muddo 4 sano ayaan ku jiraa waa tababarkii ugu horeeyay ee aan ka qayb galo intaan mihnada saxaafadda ku soo jiray sababtoo tahay ma ahan tababarkan mid aan hore u soo qaatay balse muddo ayaan ku rajaweynaa in Beledweyne mar aan ku qaadan doono tababar lagu hadlayo xuquuqda aadanaha waanu ognahay in maanta Soomaaliya ay ka jiraan tacadiyo kala duwan taasina waxa ay sare u sii qaadaysaa muddada ama tababarkan in aqoontan ay ahayd mid naga maqnayd balse ay halkan nagu keeneen madaxda ururka Soomaaliya Journalism Syndicate oo loo soo gaabiyo SGS marka hore waan u mahadcelinayaa in madaxda SGS iyo hay'adda NID oo barnaamijkan taabagelinaysa waxaan ka codsanayaa mar koobaad iyo mar labaad in wariyaasha ay u soo badiyaan seminaarada noocan oo kale ah oo looga hadlayo xuquuqda aadanaha SGS iyo NID oo barnaamijkan iska kaashaday marka hore aad bay u mahadsan yihiin sida ay wariyaasha dhowr 20 ilaa 30 ku dhow ay tababarkan u siiyeen runtii tababarkan aad ayuu u wanaagsanaa waana mid muhiimad gaar ah u leh wariyaasha magaalada Beledweyne waxaan leeyahay SGS iyo NID waad mahadsantihiin tababarada noocan oo kaleenta ahna way u baahan yihiin saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin annaga ahaan baahi weyn aan u qabnay waana ka faa'iidnay intii aan ka faa'iidnana dadka kaleenta ama wariyaasha kaleenta ayaan gaarsiin doonaa madaxda SGS iyo hay'adda syndicate waxaan mar waliba kula dardaarmayaa in ay kordhiyaan sidii ay cashiradan iyo seminaarada ku saabsan xuquuqda aadanaha ay nagu keen lahaayeen magaalada Beledweyne sida hadda ay nagu keeneen